cabdiweli online waa wariyaheena magaalada Afgooye waxa uu tagay beero kamid ah beeraha ku yaala Afgooye waxa uu la sheekaystay dadka iyagu dhinaca beerashada isagoo fikir naga siinaya geedaha waaweyn ee ka baxa oo guud ahaan dalagii uu ku yaalo iyo waqtiyada ay baxaan iyo sida xaalku u yahay iyo halka loo iibgeeyo marka hore cabdiweli online iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose aan wada daawano aad baad u mahadsantahay maxamed axmed xaaji cagamadhige daawadayaal waxaan dhex taaganahay mid ka mid ah beeraha waaweyn ee ku yaala duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose beertan waxaa ka baxa dalagyo kala gedisan iyo geedmiradyo kala nuuc ah haddaba cagta xaajiyow adiga iyo daawadayaashaba isoo raaca wax ila arka dalagyada u badan ee beertan ka baxa ayaa ah geedmiroodyada cambaha muuska ismaandhays liima dhanaanta babayga iyo qaar kale oo badan haddaba si aan wax badan uga ogaano arrinkaa waxaan kala sheekaystay khabiir dhanka beeraha ah oo aan kula kulmay waqti uu faraha kula jiray howl maalmeedkiisa beerta waa hagaag iminkan waxaa la jooga nin oday ah oo khabiir ah wax badan ka yaqaano beeraha waxaan dhex taaganahay beer ka mid ah beeraha gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye nabadoone soo dhawow والله ما هتسنتين horta maadaama aad bulshadaada uga adeegaysan boqolkiiba boqol waa mahadsantiin ay xaaja ka baxa beertan wax walba geed mirood masboondees cambo babaay liin moos ay xaajo aad baan kugu mahadcelinayaa beertan dhex taaganahay iminka waa duleedka Afgooye maxaa ka baxa wax walba ka baxa liin dhanaan moos masboondees qumbe wax walba ka baxa geed mirooda oo lagu tabaco waxaad ii sheegtaa geedka ismaandhayska ah marka la beero ilaa maalinta uu cunus gaaro muxuu u baahan yahay waana imisa waa hadduu daawo 5 sano hadii kale waa ka soo hormara hadba suu macnaa daawo ama biyo uu helo iyo falid uu helo waa geed weyn oo dhan bambalin halaqata misboondas anada ambana hadba dhaqaal soo helay daawo ay ku xiran tahay ninka hay markaas hadda tusaale babayga oo kale babayga marka la beero waa 9 bilood markuu soo gaayo 9 bilood waa soo go'aa Ilaahay maalinta la beero ilaa iyo maalinta la cunayo 9 bilood way si moosko babayga waan geed kale ka ahayn cambahana waa 5 sano ilaa 4 sano cambaha liinta isboondeeska qumbaha geed weyn oo dhan waa intaas laakiin babay iyo moos markay naqato waa ilaa 9 bilood mooska waa asaga waa 9 bilood inta uu ku baxayo canuuniga oo kalena canuuniga waa soo kala asagana saytuunka liinta isku mid way cambaha hadda suu dhaqaale weelo 3 sano 4 sano ilaa 5 sano haduu daa iminka dalaga u badan ee hadda hareerayaan yaallo waa ismaandhays iyo qumbo oo kale iyo liima dhanaan hadda liima dhanaantan ka waran ilaa imisa waa iyadana waa isku mid way laakiin hadeer waa lagu raabo waa 3 bilood daawa siina biyaal siina waa lagu ranaya caadi way 3 bilood fasal way lagu raabo ka waran saameyn ku yeelatay maadaama webiga uu buuxo qeybaha webigu dhow biyo buuxo qaybta webigu ka fog mooy qaybta webigu dhow bad way malagali karo dalagana dalagoola waa iska dhaafigaas malagali karo ileel bahalaa ku jiro wax walba ku jiro malagali karo waa sax daawadayaal anaga hadda laftigeena meel waxaan taaganahay oo banaan ah leentan inoo muuqato gadaasheena ah ma tagi karno oo dhulka biyihii webiga ku soo fatahay ayaa dhex eegaaga waa hagaag dalagan soo go'aya xagee loo iibgeeyaa xamar Afgooye ilaa iyo beeshana waa loo qaadaa dalable halbaad badalka soo yimaada laakiin badanaa xamar iyo Afgooye ku xiran tahay waxyaabaha u badan ee badbaadtiin beerleyda iminka aad u baahan tihiin idinka caawiyo inoo sheegi kartaa wallahi hadii la caawi karo biyaha soo fatahay ee aad loogu daran wax walba waa ka aadan kugu mahadcelinayaa noo doonay mahadsantahay waa hagaag daawadayaal waxaan filayaa in wax badan oo idin ogeen aad maanta ka ogaateen beeraha gobolka Shabeellaha Hoose qaabka dalagyada ay u soo go'aan iyo inta jeer ay baxaan kamana daali doono in aan soo gudbino mar walba oo aan isha ku hayno wax soo saarka dalkeena waana isha kaliya ee maanta dalka iyo dadka ay ku tiirsan yihiin dalka ka soo go'a beerahan waxa loo iibgeeyaa guud ahaan magaalada Muqdisho iyo meel ka baxsan dalka cabdiweli cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose Afgooye
wahagaag online aad buu u mahadsan yahay daawadayaal fikir ayaan ka helnay marka la fiiriyo geedaha amaba geed miroodka kala duwan gaar ahaan degmada Afgooye iyo meel walba oo markaa barwaaqadu ay ka baxdo inta ay ku baxaan cambaha iyo babayga oo kale runtii marka la cunayo way fududahay wayna macaan yihiin dadkuna way jecel yihiin si fudud ayayna u cuni jireen laakiin waxaa jira dad badan oo fikir ka haysan waqtiyada ay ku baxaan sida mooska oo kale iyo babayga waxaa naloo sheegay 9 bilood laakiin cambihii ayaa waxa xaalkiisu uu yahay ilaa iyo 4 sano ilaa 5 sano laakiin marka geedku uu bulaalo uu intaa gaara kadib si joogta ayuu u baxaya dabcan barnaamijka ku saabsan geed miroodka iyo waqtiyada ay ku baxaan iyo marxaladaha ay maraan iyo waxyaabaha lala kulmo gaar ahaan dadka beera barnaamijyo kale ayaanu ku eegi doonaa haddaynu Afgooye ka tagno